السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan joognaa magaaladan la dhaho xerada qaxootiga Hagar Dheere. Waa ujeedin dugsiyada meesha fadhido waxa way qaar loo haystaan qaarna loo ma haystaan. Kutubta taa ujeedan waxa way qaar kutub la'aan way. Marka waa ujeedan ilmahan yar yar meeshan go'doon ku yihiin waxa way Ilaahay wax ka sugaan ka sokow ummadda Soomaaliya wax ka sugaan. waa ujeeda kutubka waa soo فيري كتب كتا فيري سيسي يا إبرو موجودة كنا موجودة حلقة سيسي إلها يا وراي كتب أباهن دين منو كتب أباهنين الله يالا الله باهنين وجدا حتى مسؤول ملها ماشي مسؤول انت آدم قريها درس قامس يا مسؤول ملها ماشي مركز دوا وجدا دكسي كر أوكي وكله لكن property imaado meesha dhan waxa way waa iska fujaqan noqonay aan laakiin shaqadan waa ku cusbahay ilaahay diis isku roon yahay laakiin waxaan rabaa dadkan in wax loo qabto ya oo dugsigan wax laga qabto fahamteen marka insha Allah ilmahan waa wixii bari wadanka wax u qaban lahaa فهمت المان هدي قرآن ما أنت برتن بري يوكا مارتي معلمين نقنايان دين يوكا سي وضعن سوما يا نيو جنريشن واي ماشي إنه حلها حجر دير دولكو وجد بوست دي ميل فريستة مال درين مالها يا درين حتى مالها درين أو يكفر يستن مالها المهن ماشي وأركوسن جد واي ايه marka waa ka sidee dadkiina waa idinka la rabo waxna u qabatan ilaahay dartiis waxa maanta baxsatid bari adii ma taqaana wax ku jiro ilaahay agtiis sadaqana waxa ugu muhiimsan waxa la baxsado saan oo kale waa ardaydan wax la baro waxbarasho iskoolada waa meesha iskool ma jira meeshan iskoolada ma jira ka waran dugsiga alxamdulillah marka dawaa kan soo caawiye dadkiina ya dadka America iska joogta iska baashalaysan shalay inta ka baxdeen ma fahamtay meesha idin ka baxdeen waay marka dadkan meesha joogan soo marka waa ka hadee hadal badan haan ma bulsho kulay ku dhaa marka ilmahan waxa loo soo qabto ha loo soo dadaalo ya loo yaalka taa ujeeda waxa way iska laciif way meeshan waxaa joogtaa 70 arday maartay kutub waxay haystaan 10 kutub mafan 70 kutub waa loo baahan yahay marka waa ka hadda kulay waxa way inta kale ilaaha maartay kusugayna idin kale idin sugaya marka waa ka hadda insha Allah taala wabillahi tawfiiq